waxaan tuuray sim cardka shirkadda isgaarsiinta ee Telesom. qoraalkan waxaa facebookiisa ku soo qoray Xamse Balaaki waxaana uu ku bilaabay sidan: kadib markii aan kala kulmay caqabado badan oo ay ka mid yihiin lacagta ku hadalka ee prepaid-ka loo yaqaano, taasoo lacagta aan ku shubto sim cardka aan ka waayay, waxaan tegay oo aan ku noqday shirkadda si haddii ay adeegyo iigu furan yihiin layga xidho. waxaan la kulmay shaqaalaha qaabilsan adeegan, waxaana ii sheegeen inay igu furan yihiin adeegyo kala duwan sida aqoon maal, life score, mobile education iyo wax la mid ah. maan dalban adeegyadan oo maan furan anigu markii ugu horeysay, balse meel laygaga furay ma garanayo. in muddo ah waa layga xidhay adeegyadii, balse haddana dib ayaa laygu furay oo habeenkii haddii aan sim cardka lacag kaga seexdo uguma soo tooso. kadib markii aan arkay in aan waxba layga xidhi karin, kaarkana waxba aan laga qaban karin, waxaan go'aansaday inaan iska joojiyo isticmaalka kaarka iyo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Telesom. waxaan bogaadin mudan oo halkan uga soo jeedinayaa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo u danaysa bulshada ku xidhay oo soo bandhigtay adeegyo raali geliya bulshada si aan ka shaqaysan dadka ee bulshada wax ku soo celisa. sida ayuu bartiisa Facebook ku qoray wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa, isla markaana lagu magacaabo Xamse Balaaki. qoraalkan lagaga soo horjeedo shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa lagu arkayay baraha bulshada iyadoo dadku isla wadaagayaan. ma jiro haba yaraatee dhinacooda jawaab ka soo baxday dhanka shirkadda Telesom oo ku aadan in simikaadhadooda ay tuurayaan dadweynaha iyo dadka shacabka ah ee ku xidhan adeegooda. tani waxay ka mid tahay xorriyadda uu qofku leeyahay inuu adeega shirkadda uu doono u qaato. walow muddooyinkii u dambeeyay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ay horumar ballaaran ka gaadhay dhinaca isgaarsiinta.